السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوسو دوادا channel ka daacad graphics. Haddaad ku cusub tahay channel kan fadlan subscribe saar, video-gana like saar. Insha Allah maanta waxaan doonayaa inaan tuso qaabka la saga xiro ariska ama xayeysiisyada sida la saga xiro markaad muuqaal ka daawanaysid YouTube ama aad ka daawanaysid Google Chrome-kaaga si aad ugu xiri lahayd blogger. Aad ugu xiri lahayd wax la yiraahdo ad blocker. Marka waxaan ugu horreyn waxaan soo furaynaa Chrome-kan ama Google Chrome-kan soo furi doonaa. Google Chrome-kan markaan soo furno halkan sare waxaan ku qori doonaa website baan ku qori doonaa la yiraahdo get ad blocker. Get adblock.com getadblock.com ayaa taaban doontaa. Kadib halkaas waxaad taaban doontaa ay ku qoran tahay buttonka cas ee ay ku qoran tahay get adblock now. Marka browserskan ayaa lagu xiraa, browserskan iyo xayeysiiska laga xiraa. Marka sidaas ayaan taabanaynaa. xagga marka wuxuu ku keeni doonaa Chrome Web Store-ka markuu keeno dhinacii extensionska ayaa dabadan taaban doontaa add Chrome. Add Chrome markaad taabatid dhinacaad odhan add extension. dadna xoogaaba la check garayn xaggana wuu ka load gareysmi doonaa, hoos ayuu ka daadegi doonaa ama download buu kugu samayn doonaa. haddeer uu ku dhammaaday laakiin chickenkii baa la wadaa oo kamilka soo kacay. marka uu saa kugu soo kaco oo lagu install gareeyey markaa down jiray marka halkaa calaamad taagan tahay kadib waan iska xidhi doonaa. YouTube-kan geli doonaa. markaa YouTube-kii markaan galo muuqaal baan daawan doonaa muuqaalada ka mid ah xayeysiis sida ugu badan kaas oo kale waa muuqaal xayeysiis leh. wax xayeysiis halkan saar ma jiro, muuqaalkaas si nadiif ah aad ku dhamaysanaysa. kan kale wax xayeysiis ma leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.